xildhibaan maxamed sidee waxa ku dhacay baarlamaanka maanta oo aan arkaynay in buuq uu jiray xukuumadana la ansixiyay xogaa buuq yar ka dhacay xildhibaano ilaa 10 gaaraya oo ka gadoodsan oo mooshin wado runtii ayuu buuq ka dhacay dad badan dhaliilo way qabeen oo xukuumadda sida loo dhisay annaga waa dadaan aniga ahaan iyo beeshaydaba dadku ugu dulmo haddana laakiin waxaan ka hormarinay danta dalka annagu og sida wax loo soo xulay haddana aan waxaan fiirinaynaa inaan dawladda dhaqso ansixino si hore loogu socdo waayo culays dib u dhaxligan lagama baxo marka waa la ansixiyay xukuumaddii dadkii xoogaa buuqii meeshan ka dhacayna kulleeytu waa la xaliyey marka dawladdan waxaan ka sugaynaa in wax badan ay qabato qaladaadkii hadda sida loo soo dhisay xukuumaddan qaladaad badan ka jiray in la saxa ayadana rajaynayna ilaahay hadduu yiraahdo maxaa keenay in xildhibaanada ay ku buuqaan markay baarlamaanka la hor keenay golaha wallaahi xildhibaanada waxbay tabanayeen oo kulleeytaba ayaga og waxbay tabanayeen waxay si u arkayeen sida annaga wax u tabanayeen kale u tabanayeen laakiin xogaa sida u wajaheen iyo ayaa buuqaas waxba qalad ka jira mooyee laakiin waxbay tabanayeen wixii ay tabanayaan dhibkaatada keentay in la isku fahmi waayo meeshan uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre xukuumaddaas ra'iisul wasaare ku-xigeenkii iyo wasiiradii wasiir ku-xigeenadii wasiir dawlayaashii waxay ku ansixiyeen golaha shacabka baarlamaanka cod aqlabiyad leh oo ay arkayeen muwaadiniintii Soomaaliyeed ee dhex joogtay golaha shacabka waxaan leenahay waxa la iniga fadhiyaa maadaama tiin hay'adii fulinta waxa la iniga fadhiyaa dalka inaad ku soo dabaashaan amniga xasilooni iyo in aad dalka u duubataan dadkeena abaaruhu halakeeyeen aad u duubataan oo aad gurmadkiiyo gargaarkaba bilowdaan waxaan leenahay dalku wuxuu maanta eegayaa uu sugayaa waa idinka xildhibaan caasha waxaa jirta xildhibaano diidanaa ansixinta xukuumadda maxay ka gadoodsanayeen buuqi muxuu ahaa xildhibaano diidanaa way jireen xildhibaan walbana fikirkiisu leeyahay idinkuna waad arkayseen intay ahaayeen waxay ka gadoodsanaayeen ee diidanayeenna kolley waa wax iyaga dhexdooda ku jira annagana waxay noo sheegeen walaalahaye ma jira laakiin baarlamaanku haana wuu odhan karaa mayana wuu odhan karaa inkastoo waxoogaa 3 xildhibaan maaragtay tiro aan 3 xildhibaan ka badnayn ay canqabad maaragtay iyo carqalad iyo fawdo ka dhex bilaabeen golaha dhexdiisa xildhibaanadaas waxay ahaayeen 3 xildhibaan oo maaragtay ka soo jeeda koonfur galbeed dana iyaga maaragtay u gaarana maaragtay iyaga yacni dantoodii ka dhex arki waayay bay ahaayeen 237 xildhibaan baa ku joognay golaha shacabka 3 xildhibaan mooyee intii kaleba gacanta u taageen oo way ansixiyeen waxaan odhan karaa markaa in dantayda ama danta reerkayga mar walba waxa ka weyn danta qaranka danta ummadda Soomaaliyeed xildhibaanka waxa fiican maaragtay inuu maaragtay maskaxdiisa iyo qalbigiisa isagoo ka xora in uu maaragtay goor wax la macaarado ma joognaba maanta waa maalintii koowaad xukuumadda la keenay weeyaan xukuumadda waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala wax qabad baan ka rajaynaynaa xukuumadda in la isbarbar taagan rajaynaynaa insha Allah ta'ala waana soo dhawaynaynaa dhaliilaheeda iyo waxeedana gadaal bay ka iman doonaan insha Allah ta'ala wallahi waad arkaysaa Cabdicasiis waxa baarlamaanka la isku dayay macnaha in ay tirada kooban ahaayeen oo waliba tirada diiday iyo tirada samaysay arrimaha kale ee dhacayay isku dayga ahaa iyo xogaad waad arkaysay wixii dhacay tiro kooban ay ahaayeen tirada diidaa 7 ah laakiin tirada arrintaas samaysay waa tiro inta aad uga yar oo tiro koobana marka arrintaasi baarlamaanka iyo guddoonka baarlamaanka ka sugaynaa waxa ay markaa dastuurka iyo waxa uu ka qaba xeer hoosaadkan yiraahday laakiin guud ahaan waxaan ka eegaynaa 229 xildhibaan ayaa ogolaatay xukuumadda arrintaasna waa guul taariikhiya oo markaa xukuumaddan ay ku ansaxday oo dan qaran waana soo dhawaynaynaa xildhibaanada haddaan nahayna maanta shacabka Soomaaliyeed waxaan u muujinnay in shaqadeenna iyo hawsheenna aan diyaar u nahay oo markaa aan gudanay waajibaad dastuuriya maadaama dalka baahi xoog loo qabo xukuumad rasmiya oo markaa shaqaysa maadaama muddo lagu soo jiray cagajiid iyo jiijiid iyo muddo dheer ay markaa ay jirtay habac xoog la u taagnaa bismillaahir rahmaanir rahiim buuq badan ani hadda ma arag xildhibaano ilaa 5 mise 3 xildhibaan oo ka aragti duwan xukuumaddaas la keenay waa arkay laakiin si sharaf leh baarlamaanka ku ansixiyay cod aqlabiyad leh 229 cod oo maartay xubnaha meesha fadhiya baarlamaanka ay ka heshay qaar diiday oo badnayn way jireen xaqeena u leeyihiin
mar haddii cod la qaado qaarna inay diidaan qaarna oggolaadaan muhiimaddu waa in ay maaragtay waddankan duruufo badan oo runtii soo maray muddo dheeraa siyaasado isdiidan iyo maaragtay waqtiyo badan oo dalkan ka lumay muhiimadda waa in xukuumaddaas madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud iyo wasaare xamse cabdi barre ay soo siiyeen in baarlamaanka oo annagana aan maanta kalsoonida siinay lana shaqeeyo runtii duruufo amni iyo duruufo abaaraba waa lagu jiraa xilli xukuumad la mucaarado runtii hadda lama joogo xilligii lala shaqayn lahaa ayaa maaragtay in la taagan yahay aniga aaminsanahay waxaanan hambalyo iyo wada shaqayn ahayn xukuumadda hadda uma furno marka waa mahadsantihiin assalaamu calaykum